cajaa'ibta iyo ku cimri qaadashada dhacdooyinka dunidan dusheeda ka dhacaahi way inooga filan yihiin in aan iska ahaano dad khaflad ku jira oo jid iyo jiha ay u socdaan aan ogayn. aadanaha qaarkiis waxaa ku jira dad marka ay riyoodaan ay rumowdo waxay ku riyoodeen, macnaha si toosa ayay u dhacayaan waxyaabaha uu qofkaasi ku riyooday. walaashiis uur ayay lahayd, isaguna wuxuu ku riyooday canuga caloosha walaashiis ku jiraahi marka ay dhasho inuu dhiman doono. walaashiis way bila dhammaysatay, dabadeedna way dhashay. subxaan allah, nasiib darro wax waliba waxay u dhaceen sidii uu ugu riyooday, oo walaashiis gabar ayay dhashay, dabadeedna gabadhii yareed ee uu abtiga u ahaa way geeriyootay. isaguna hadda waxa uu isu arkaa inuu yahay qumay aan mudnayn in uu la noolaado qoyskiisa. cibaadada iyo taacada iyo dikriga alle aad u badi. qofka marka riyadiisu ay dhacayso runna ay noqonayso waa intuu soo jeedkiisa ku cibaado iyo run badan yahay. daawade, waxaa laga yaabaa in habeenada qaar aad dareentid welwel iyo riyooyin xambaarsan dhibaatooyin iyo cabsi. si markaad u ahaatid shaqsiga ugu horeeya ee la socda fasirada uu riyooyinka ka bixiyo fadiilatu sheekh xasan ibraahim ciise, fadlan falow dhaho beejkan, kadibna muuqaalkan sheer iyo like inoo dheh si ay inoogu soo xirmaan saaxiibo kale oo sidaada oo kale u wanaagsan. haatanna aan idiin soo baahiyo fasirka riyada wiilkii waxyaabaha uu hurdada dhexdeeda riya ahaan ku arko ay dhab ahaan u dhacaan mar walba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sheekh xasan ibraahim ciise waan ku salaamay. aakhiriyo adduunba ilaahay ha ku barakeeyo, jannatulfirdowsa ayaan kugu duceey. shiikh, waxaan ahay wiil dhallinyaro ah. sheekh xasanow, mararka qaarkood waxaan isku arkay aniga oo keliga iska fikiraaya, murugsan, welwelaaya, wax dhibaatana aysan i haysanin. waxaa dhacda marka sheekh, markaas aan murugada iyo welwelka dareemo, habeenkii markaan seexdo waan riyoodaa. waxa aan ku riyoodana si dhaba ayay u dhacaan. laakiin sheekh xasanow, arrimaha aan ku riyoodo dadka uma sheego ilaa ay dhacaan. tusaale, xilli dhow waxaa dhacday, maalin ayaan aad u murgay. kadib habeenkii waan seexday. habeenkii waxaan ku riyooday gabar ila dhalatay oo uur leh, canuga ay dhali doonto inuu dhiman doono. taasina way dhacday. gabadhii ila dhalatay way bilo dhammaysatay, kadib gabar yaray dhashay. gabadhii yareed maalmo kadib way dhimatay. sheekh xasanow, maxaan sameeyaa? murugadaas iyo culayskaas ayaa nolosha xaggeeda ka dareemaya. haddaba sheekh xasanow, macno ahaan maxay yihiin fasirka iyo nuxurka ka dambeeya riyooyinkan igu soo laalaabtay ee markaan waxyaaba ku riyoodaba ay si dhaba u rumoobaan? qaybta koowaad, murugada, dayiqa, waxyaabaha la dareemo waxaa looga baxaa cibaado fara badan. qofku waa inuu cibaado fara badan sameeyaa. walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun buu dhahay ilaahay. maxaa looga bixi karaa? fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. haddaad kari karta guriga aada degan tahay inaad qur-aan isaga akhriso, khaasatan suuratulbaqarana aad bay u fiican tahay iyo jirkaaga. marka taasaad samaynaysaa ilaahay idinkii. middaa labaad ee aada ku riyooto shay wixiina ay dhacaan, wanaagna wuu noqon karaa, xumaanna way noqon kartaa. wanaag baan u badinaynaa inshaa allahu tacaala. cibaadada iyo taacada iyo dikriga alle aad u badi. qofka marka riyadiisu ay dhacayso runna ay noqonayso waa intuu soo jeedkiisa ku cibaado iyo run badan yahay. saasaa markaa la tilmaamaa. si degan oo fahmadi ay wehliso ayaad uga faa'iidaysateen sidaan filaayo fasirka riyada uu ka bixiyey fadiilatu sheekh xasan ibraahim ciise. daawade, si muuqaalkan uu u gaaro walaalo kale oo raba in ay ka faa'iidaystaan fasirka riyadan, fadlan sheer iyo like dheh muuqaalkan insha allah. waadna ku mahadsan tihiin sida aad inoola tihiin wehel iyo walaal waqti fiican nala qaata.